falcelin xooggan oo ka dhalatay tallaabadii dowladda federaalka ee isaga leexisay fadeexadda. Sidee ayay uga falceliyeen shacabka Soomaaliyeed arrintii ay sameysay gabadhii tartanka orodada Shiinaha ka qaybgalaysay? Maxaa kala socotay xogtan la yaab kale ee ka soo yeertay shacabka Soomaaliyeed? Muuqaalkan ayaan kula wadaagi doonaa ila soco. Aynu ku bilownay bulshada Soomaaliyeed ayaa si cara xooggan leh uga falcelisay in dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ay iska fogeysay fadeexadii dalkeena ka soo raacday tartankii orodka ee Shiinaha. Wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Maxamed Bare Maxamuud oo shir jiraayad qabtay ayaa iska fogeeyay in wasaaraddu ay wax door ah ku lahayd xawlidda gabadha Soomaaliya ku matalaysay tartankaasi oo lagu magacaabo Nasra Abuukar Cali. Wasiir Bare ayaa sheegay in tartanka uusan ahayn heer qaran balse uu ahaa midka jaamacadaha adduunka, isla markaana gabadhaasi aysan soo xulin wasaaradda balse markii ay bixisay kaliya la soo ogeysiiyay isagoo eedda dusha ka saaray xiriirka diray. Sidoo kale wuxuu intaas ku daray in ka wasaarad ahaan ay aad uga xun yihiin kana raaligelinayaan bulshada sida ay wax u dhaceen iyo guuldarrada weyn ee soo gaartay Soomaaliya. Waxa uu sheegay in ka wasaarad ahaan ay qaadayaan tallaabo ku aadan arrintan isla markaana ay baarayaan sida lagu soo xulay Nasra. Hase yeeshee bulshooyinka Soomaaliyeed waxa uu intan weysay in wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ay waxba ka ogaan weydo hab xulista gabadhaasi iyada oo guuldarrada tartankaasi ka soo raacday Soomaaliya ay u horseeday fadeexad weyn. Haddaba sidee uga falceliyeen bulshooyinka Soomaaliyeed arrintan? Maxamed Cabduqaadir ayaa yidhi gabadha heer qaran maaha, haddana wiilka waa heer qaran oo tababar qaatay. Sidee hal tartan oo wada qaybgeli karaan labadooda? Warkaaga waa isdiidaya. Cabdinuur Weyrax ayaa isna waxa uu yidhi imisa wasaaradood oo ciyaaraha ayaa dalka ka jira? War naga xishooda cawaan yahay calanka meesha ka babanaya jaamacad miyaale mise ummadda Soomaaliyeed ceeb u dhintay iyo weji gabax dalkii iyo gabadhii waad ceebeyseen ayuu yidhi Garaad Xabiib Maxamed. Yaxya Xaaji Juscad ayaa isna yidhi shakhsi walba oo xilka laga qaadayo waxa uu sababsadaa, laakiin gabadhan ayaa kula kacday ee sawir badan muuji meesha ee lagama rabee. Tartan ay Soomaaliya ka qayb gashay oo wasaaradda ogaan weyday waa maxay? War waxaas waxay ceeb ku tahay wasaaradda ayuu yidhi Axmed Cabdi Farax. Cumar ayaa sidoo kale waxa uu yidhi hadduu ra'iisul wasaaraha ku bedeli waayo waxaa xaqiiq noqonaysa kelmadda ah dan qaraabo. Rooble Macalin Axmed ayaa isna yidhi wasiir warkaas macquul ma aha, waxaas markaa saarayso mudane xisaab ayaa idiin taala ayuu yidhi Ismaaciil Mire. Mukhtaar Cilmi ayaa isna yidhi warkan ha la caddeeyo, wax la qaadan kara maahan in magaca Soomaaliyeed meel looga dhaco. Dhanka kale ayaa isna Ibraahim waxa uu yidhi warkaasi cid ka akhrisanaysa ma jirto. Markii la sagootinayay agaasimaha wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiska ayaa taagnaa sheeko ay ku nacay. Maxamed Nuur Macalin Maxamed ayaa isna yidhi haddaa guuldaraysato qof walba wuu ku inkirayaa. Ugu dambeyn Kamaal Owsiye ayaa isaguna waxa uu yidhi weli waad sii hadalaysaan, isku xishooda magacii Soomaaliyeed sharaftiisa ayaa dhulka la gasheen. Wasiirka ciyaaraha dhan baa ogeyn gabadhaas yaab. Haddaba bulshooyinka Soomaaliyeed ayaa waxay toos u weerareen wasiirka ciyaaraha iyagoo markaasi sheegay inay ceeb ku tahay in wasaaraddiisa ogaaweyda gabadhaasi loo diray tartanka. Tartanka ma aha mid maamul goboleed iyo mid dowladda federaalka dhexdeeda, balse waxa uu yahay tartan heer qaran ah oo lagu qabanayay dalka Shiinaha, waxaana halkaasi ka soo qaybgelaya dhammaan wadamada tartankaasi la isugu yeeray iyo warbaahinta caalamka, waxayna wada sugayeen guusha halkaasi cid ay raaci doonto iyo cidda foolxumada ay ka soo gaarayso. Haddaba nasiib ayay noqon lahayd in gabadhaasi kaalmaha hore ay soo gasho, waxaana markaasi yaraan lahaa culayska haatan soo food saaray wasaaradda isboortiska ciyaaraha ee dowladda federaalka Soomaaliya. Balse haatan gabadhaasi oo soo yeesay guuldarro aad u weyn lambarka ugu dambeeyana gashay waxay sidoo kale ceeb weyn soo gaartay bulshooyinka Soomaaliyeed qaabkii u orday iyo meeshii laga filayay iyo meeshii ay isdhigtay. Waxaana haatan la filayaa in wasiirka wasaaradda ciyaaraha isboortiska laga qaado xilka
haddiise laga qaadi waayo tani ay noqonayso dan qaraaco maadaama dalka haatan uu yahay fashil sidoo kalena ceeb weyn ay dul hoganayso keliya ceebtaasi waxa lagu badbaadin karan ay tahay in wasiirka xilka lagu xayuubiyo maadaama uu mas-uul ka yahay dhammaan arrimaha quseeya ciyaaraha. wasiirka ayaa wuxuu carabka ku dhuftay in gabadhaasi ay matalaysa jaamacad balse waxa meesha ka badbaadinaya calanka Soomaaliyeed ayuu ahaa ee ma ahayn jaamacad ku taala dalka Soomaaliya. sidoo kale waxaa meesha joogay dhammaan mas'uuliyiin ka socota dowladaha ee ka qayb galaya tartankaasi. tartankan waxa uu ahaa heer caalami markii cid ka yeelayso ma jirto. jaamacadda ay gabadhaasi ka socotay ayay dhammaan ku weerareen dadkan ka falceliyay siyaabaha kala duwanna uga hadlay guuldaradii gabadhaasi ka soo gaartay tartanka lagu qabtay dalka Shiinaha. falcelin xooggan oo ka dhalatay tallaabadii dowladda federaalka ee isaga leexisay fadeexadda sidee ayay uga falceliyeen shacabka Soomaaliyeed arrintii ay sameysay gabadhii tartanka orodada Shiinaha ka qayb galaysay. waxaa kala socotay xogtan la yaab kale ee ka soo yeertay shacabka Soomaaliyeed. muuqaalkan ayaan kula wadaagi doonaa ila soco aynu ku bilownay bulshada Soomaaliyeed ayaa si cara xooggan leh uga falcelisay in dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ay iska fogeysay fadeexadii dalkeena ka soo raacday tartankii orodka ee Shiinaha. wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Maxamed Bare Maxamuud oo shir jiraayad qabtay ayaa iska fogeeyay in wasaaraddu ay wax door ah ku lahayd xawlidda gabadha Soomaaliya ku matalaysay tartankaasi oo lagu magacaabo Nasra Abuukar Cali. wasiir Bare ayaa sheegay in tartanka uusan ahayn heer qaran balse uu ahaa midka jaamacadaha adduunka isla markaana gabadhaasi aysan soo xulin wasaaradda balse markii ay bixisay kaliya la soo ogeysiiyay isagoo eedda dusha ka saaray xiriirka diray. sidoo kale wuxuu intaas ku daray in ka wasaarad ahaan ay aad uga xun yihiin kana raali gelinayaan bulshada sida ay wax u dhaceen iyo guuldarrada weyn ee soo gaartay Soomaaliya. waxa uu sheegay in ka wasaarad ahaan ay qaadayaan tallaabo ku aadan arrintan isla markaana ay baariyaan sida lagu soo xulay Nasra. hase yeeshee bulshooyinka Soomaaliyeed waxa uu intan weysay in wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ay waxba ka ogaan weydo hab xulista gabadhaasi iyadoo guuldarrada tartankaasi ka soo raacday Soomaaliya ay u horseeday fadeexad weyn. haddaba sidee uga falceliyeen bulshooyinka Soomaaliyeed arrintan? Maxamed Cabduqaadir ayaa yidhi gabadha heer qaran maaha haddana wiilka waa heer qaran oo tababar qaatay sidee hal tartan oo wada qayb gali karaan labadooda warkaaga waa isdiidaya. Cabdinuur Weyrax ayaa isna waxa uu yidhi imisa wasaaradood oo ciyaaraha ayaa dalka ka jira war naga xishooda cawaan yahay calanka meesha ka babanaya jaamacad miyaale mise ummadda Soomaaliyeed ceeb u dhintay iyo waji gabax dalkii iyo gabadhii waad ceebeyseen ayuu yiri garaad Xabiib Maxamed. Yaxya Xaaji Juscad ayaa isna yidhi shakhsi walba oo xilka laga qaadayo waxa uu sababsadaa laakiin gabadhan ayaa kula kacday ee sawir badan muuji meesha ee lagama rabee. tartan ay Soomaaliya ka qayb gashay oo wasaaradda ogaan weyday waa maxay war waxaas waxay ceeb ku tahay wasaaradda ayuu yiri Axmed Cabdi Farax. Cumar ayaa sidoo kale waxa uu yidhi hadduu ra'iisul wasaaraha ku bedeli waayo waxaa xaqiiq noqonaysa kelmadda ah dan qaraabo. Rooble Macalin Axmed ayaa isna yidhi wasiir warkaas macquul ma aha waxaas markaa saarayso mudane xisaab ayaa idiin taala ayuu yidhi Ismaaciil Mire. Mukhtaar Cilmi ayaa isna yidhi warkan ha la caddeeyo wax la qaadan kara maahan in magaca Soomaaliyeed meel looga dhaco. dhanka kale ayaa isna Ibraahim waxa uu yidhi warkaasi cid ka akhrisanaysa ma jirto. markii la sagootinayay agaasimaha wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiska ayaa taagnaa sheeko ay ku nacay. Maxamed Nuur Macalin Maxamed ayaa isna yidhi haddaa guuldaraysato qof walba wuu ku inkirayaa. ugu dambeyn Kamaal Owsiye ayaa isaguna waxa uu yidhi wali waad sii hadalaysaan isku xishooda magacii Soomaaliyeed sharaftiisa ayaa dhulka la gasheen. wasiirka ciyaaraha dhan baa ogeyn gabadhaas yaab. haddaba bulshooyinka Soomaaliyeed ayaa waxay toos u weerareen wasiirka ciyaaraha iyagoo markaasi sheegay inay ceeb ku tahay in wasaaraddiisa ogaaweyda gabadhaasi loo diray tartanka. tartanka ma aha mid maamul goboleed iyo mid dowladda federaalka dhexdeeda
balse waxa uu yahay tartan heer qaran ah oo lagu qabanayay dalka Shiinaha, waxaana halkaasi ka soo qaybgelaya dhammaan wadamada tartankaasi la isugu yeeray iyo warbaahinta caalamka, waxayna wada sugayeen guusha halkaasi cid ay raaci doonto iyo cidda foolxumada ay ka soo gaarayso. Haddaba nasiib ayay noqon lahayd in gabadhaasi kaalmaha hore ay soo gasho, waxaana markaasi yaraan lahaa culayska haatan soo food saaray wasaaradda isboortiska ciyaaraha ee dowladda federaalka Soomaaliya, balse haatan gabadhaasi oo soo yeesay gooldare aad u weyn lambarka ugu dambeeyana gashay waxay sidoo kale ceeb weyn soo gaartay bulshaweynta Soomaaliyeed qaabkii u orday iyo meeshii laga filayay iyo meeshii ay isdhigtay. waxaana haatan la filayaa in wasiirka wasaaradda ciyaaraha isboortiska laga qaado xilka, haddiise laga qaadi waayo tani ay noqonayso dan qaraaco maadaama dalka haatan uu yahay fashil, sidoo kalena ceeb weyn ay dul hoganayso. kaliya ceebtaasi waxa lagu badbaadin karan ay tahay in wasiirka xilka lagu xayuubiyo maadaama uu mas'uul ka yahay dhammaan arrimaha quseeya ciyaaraha. wasiirka ayaa wuxuu carabka ku dhuftay in gabadhaasi ay matalaysa jaamacad, balse waxa meesha ka badbaadinaya calanka Soomaaliyeed ayuu ahaa ee ma ahayn jaamacad ku taala dalka Soomaaliya. sidoo kale waxaa meesha joogay dhammaan mas'uuliyiin ka socota dowladaha ee ka qaybgalaya tartankaasi. tartankan waxa uu heer caalami, marka cid ka yeelayso ma jirto. jaamacad ay gabadhaasi ka socotay ayay dhammaan ku weerareen dadkan ka falceliyay siyaabaha kala duwanna uga hadlay guuldaradii gabadhaasi ka soo gaartay tartanka lagu qabtay dalka Shiinaha.